garoonkan diyaaradda gobolka wadalna ariga ku ciyaari maayaan kuwa kalena la dhismayo. Boorama waa caasimadda labaad ee Somaliland waana magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn marka la eego guud ahaan Somaliland. Boorama waxay dhanka horumarka kala mid tahay magaalooyinka kale ee ku yaala guud ahaan dalka hase ahaatee maysan helin qaybo ka mid ah kaabayaasha horumarka ee magaalooyinka dhigeeda ee ku yaala Somaliland ay ku talaabsanayaan. tusaale ahaan madaarka magaalada Boorama waxa uu ka mid yahay madaarada waaweyn ee Somaliland hase ahaatee in ka badan 28 sano ee u dambeeyay ma jiraan wax diyaarad oo ka soo degta isla mar ahaantaana ka duusha gegada diyaaradaha ee Aadan Isaaq International Airport ee magaaladani. inkastoo haddaba maalintii shalayto xadhiga laga jaray gegada diyaaradaha ee Berbera International Airport ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa shacbiga kala duwan ee magaalada Boorama waxa ay isweydiiyeen xalka lagu ilaaway garoonkii diyaaradaha ee Boorama kaasi oo muddooyinkii u dambeysay hadalqaadkiisa aan marnaba laga maqlin xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi. shacbiga kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorama haddaba arintaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa shalaytoole waxa la xadhiga laga jaray garoonkii Berbera kii Burco la xaxay kii Ceergaawsida kii Boorama dhin lama soo eegin marka de ilaa imikana waxa ku ciyaaray daaqayba argi ma aha mid wax laga qabanay ma aha mid loo soo socdo ma aha mid la leeyahay wax ka qabta waana ku garaadaysan dhagax dhigiisa maalin kasta wax la bilaabaya marka de halkana garoonkan diyaaradda gobolka wadalna ariga ku ciyaari maayaan kuwa kalena la dhismayo wax qabadka waxa weey waa loo siman yahay waxa weey dal la wada leeyahay waxa weeyeen Soomaaliland mid loo leeyahay marka waxa muhiim ah in gobolada si siman wax looga qabto sida gobolada kale looga qabanay gobolka oo gobol lamid ah in looga qabto ku garaadsan in maalin kasta waa la dhigay iyo wax balaan adiguna ku ciyaari maayaan marka waxaan leenahay wax laga qabto waan ku garaadsan sida wax isbedel ma jirto maalin kasta la dhisay kuwii kalena anagoo arkayna xarig laga jaraya anu fikir ahaan kamxiidin ahaan waxaan qabaa inay boqolkiiba 65 madaarka dhismihiisa waxa hor taagan dadka reer Boorama haddii aan sababeeyo sababtay inay hor taagan yihiin dhowr jeer wax la isku dayay madaarka in wax laga qabto waxa loo maaro waayay in xayndaabkii uu madaarku yeelanayay bulshadii meesha deganayda jagooyinkooda laga iibiyay way dawladdu hoos waliba sharciyeysay iyo inayday gudidii madaarada markaa la soo diray in isku fahmi waayaan inayday xayndaabkii madaarka dadkiina ay ku dhageen oo yiraahdeen xaq waxaan u leenahay annagu sharci baan u haysanaa inta soo hadhayna dadweynaha reer Boorama waxa laga rabaa waa cashuur bixiyayaal iyagu oo cashuur bay bixiyaan xaqna waxay u leeyihiin miisaaniyad kasta oo la baasgaraynayo oo gobolada 6 gobol ee waaweyn loo qaybinayo inay kula xisaabtamaan inayday cashuurtooda ay bixiyaan inay ku xisaabtamaan dadka inayday madaarka eeriyadiisa inayday degan iyo bulshada kale reer Boorama haddii ay rabaan inay la jaan qaadaan gobolada kale waxa laga rabaa iyagu inay la yimaadaan inayday wixii wax loogu qaban lahaa inay la yimaadaan balse waxaynu doonaynaa madaxweyne xaggan galbeedkana inaad mararka qaarkood soo eegto mashaariicda dalkana waa loo simeeyay ama imaaraad ha ka timaado ama dalkeena dakhli ka soo baxay laga mashaariic lagu horumariyo waxaynu leenahay garoonada wax laga qabto oo xaggan galbeedka la soo eego sida awgeed lacagtii way taalaa airport waa dhisaya way ka go'an tahay hal cent laga matageeyo mon mitir laga matageeyo inta hada la marnaya haddii dadku baqayaan oo inna aan ka hadlayn I tell you horaan idinku sheegay gadabuursiyow oo idin dhulkiina wardaysta imikana ku soo maxaa waa ku soo dhawaateen waxaan shalay ka hadlayay in hadaya maanta waa aqabada u koobaad waxa ka taagan tahay way aqabada koowaadi waxa ka taagan tahay waad arkaysaa dhulku airport yahay waad arkaysaa dhulku umada yahay ninkasta wuxuu ka fikiray inuu dhulka boobo كوسارة هان يك دولة هان وين نلاقو أنت إيربوت للسو كي كعيو كع كي قرحيو قرح جامعة دوده بورما